ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أنتو أيتهي بش شعبان شنيتون أي مريسو سنة هجرية كون أفر بغلفرتني كو ومالين 4 أيتهي وافق سن لبضكن إلى واتنكا بش سديدات بش أفرات ومالين سديد أيتهي أبريل. أيها وحاربنا إن شاء الله تعالى إن هل كان كلا وداقنو ولا لها oo codkeena gaarayo oo meel kastay joogaan kelimad oo kooban, kelimadaasoo ku xisaabsan التغليظ في حرمة دم المسلم، in la adkeeyo ama la ilaaliyo dhiigga muslimka ah xurmada uu leeyahay. kelimadana sababteedu waxay tahay maalmahan dagaal ka socday degmada Walaweyn ama Daafeed oo 2 beel meesha ku dagaalantay, meesha ka dhacay waxyaalo aan maaragtay ka hormaadsan diinta islaamka ah, shariicada islaamka ka hormaadsan, sidaas oo kale ibn aadamnimada iyo insaaniyada iyo Soomaalinimada ka hormaadsan labada dhinacba. marka muslimiinta meel kasta ay joogaanba oo deegaankaas iyo maaragtay u nasab sheegtaan ama meel kasta ay joogaanba, waxaa la rabaa marka xilligan oo kale iyo waqtigan oo kale culimada oo labada beelba inay ka hadasho dhiigga muslimka ah xurmadiisa iyo sida shareecada ugu adkaato weeyaan. oo waxaa la rabaa dowrka culimada inay gutaan, doorkooda uu yahay inay dadka u bayaaniyaan, ay u cadeeyaan, ay u sheegaan Allah subxaanahu wa tacaala heerka uu gaarsiiyey dhiigga muslimka ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadan wuxuu u soo dejiyey oo loo yaqaano maqaasid shariica, shareecada ujeedada loo soo dejiyey ama hadafka ama yoolka shareecada waa 5 shay inay ilaaliso weeyaan. shayga koowaad xifdhu nafs, nafta in la xifdiyo. kan labaad waa xifdhu diin, hadafka labaad ama maqsadka labaad waa diinta la xifdiyo. kan saddexaad waa xifdhu alcaqli, caqliga in la xifdiyo. kan afaraad waa xifdh almaal, xoolaha in la xifdiyo. kan saddexaad xifdhu alcird, nasabka in la xifdiyo weeyaan. 5taas shay ayaa shareecada loo soo dejiyey inay xifdiso. mid kasta shareecada waxay u samaysay sabab ama xad lagu ilaaliyo lagu xifdiyo. sida nafta oo kale waxaa lagu xifdiyaa shareecada u sheegtay qisaas. qaala tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun. diintana waxaa lagu xifdiyaa qofkii diinta ka baxo murtad noqdo oo diinta islaamka ka baxo, oo markii loo sheego loo bayaaniyo shuruuda kaamil ay noqoto, mawaanicdiina maaragtay meesha laga waayo, in marka dambe oo shareecada inoo sheegto man badala diinahu faqtuluuh. sidaas oo kale caqliga waxaa lagu xifdiyaa oo shareecada ay ku xifdiso xaddu shaarib alkhamri, qofkii caqligiisa ku ciyaaro oo khamri cabo in xadka laga ogo. sidaas oo kale maalka waxaa lagu xifdiyaa loo yaqaan xifdul maal, waxaa lagu xifdiyaa ujeedada shareecada ay maaragtay loo soo dejin ay tahay
xaddu saariq qofkii wax xado oo xoolo xado in gacanta laga jaro. sidaasoo kale xifd alcird, cirdiga iyo nasabka waxaa lagu xifdiyaa xaddu zina, qofkii zinaysto in xadka laga ogo, ama qadfu lmuxsanaat, ama qadaf xadulqadf qofkii sameey weyaan. saa darteed marka shantaas shay ayay shareecada allah subxaanahu wa tacaala u soo dejiyay inay ilaaliso. shanta shay wixii lagu ilaalinaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo sheegay cilaajkeeda, daawadeeda, xuduudda in la ilaaliyo. marka maanta waa in laga digtoonaado, waa in la xasuusanaado ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiis qur-aanka ah. qaala tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaba muhiina. ilaahay subxaanahu wa tacaala waacadda lahu cadaaban cadiima. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayadiis qur-aanka ah, axadkii dilo qof mu'min ah oo si kas olokac u dilo, jazihiisa iyo abaalkiisa waa jahanama weyaan. waa jazaa ugu horey weyaan, fajazaؤuhu jahannam. yani qofkii mu'min dila oo kas u dila, abaalkiisa waa jahanama weyaan. haddina waxaa la yidhaha ciqaabka labaad ku xigo khaalidan fiiha, wuxuu ku waarayaa jahanamada, uu ku waaraya weyaan. ciqaabka kale saddexaad oo allah subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aan ku sheegay, iyadoo la adkeynayo xurmata dami lmuslim iyo la ilaalinayo cismata dami lmuslim, waqadiba allahu calayh, ilaahay baa u xanaaqaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qadabkiisa iyo sakhadkiisa caradiisa ku dhacaysa weyaan. midka afaraad oo ciqaabka afaraad ama goondiga afaraad, walacanahu, ilaahay wuu lacnadaya. lacnadan waxay tahay atardu min raxmat illaah, qofka in laga fogeeyo naxariista allah subxaanahu wa tacaala. kan shanaad ugu dambeey, waacadda lahu cadaaban cadiima, ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab oo weyn weyaan. walidaalika ibnu kathiir raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay hada tahdiidun shadiid wa waciidun akiid liman tacaaطa hada danb alcadiim aladi huwa maqruunu bishirk billahi fi gayri ma aayati min kitaab illah. ibnu kathiir wuxuu leeyahay waciidkan waa waciidka ugu daran qur-aanka lagu sheegay, ama goondigan iyo ciqaabkan waa ciqaabka ugu daran lagu sheegay qur-aanka. bal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku lamaanayey oo ku xijiyey shirkiga. waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafs. aayad fara badan ilaahay wuxuu ku lamaaniyey ama ku xijiyey shirkiga weyaan. waad garanaysaan shirkiga waa acdamu dembin, dembi u weyn allah subxaanahu wa tacaala laga galo, dembiga u weyn oo kownkan lagu galo waa shirki weyaan. shirkigaas dembigaas u weyn waxaa ku xigo qof muslin ah dhiiggiisa la xalaalaysto oo la banaysto weyaan. saa darteeda nebiguu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. walidaalika ibnu cabaas aayaddaas waman yaqtul mu'minan wuxuu yidhi aayaddaas waxay tusinaysaa qofkii qof mu'min dila ama qaatilka oo mu'min dila towba ma laha weyaan, laysa lahu towba. waa ibnu cabaas ra'yi ku tegi weyaan. saa darteed marka nebigina calayhi salaatu wassalaam axaadiis badana ka sugnaatay, oo waxaa ka mid axaadiista xadiis werinaya cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam awal maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dima muttafaqun caleyh. sheyga ugu hore oo maalinta qiyaama la xukumaayo oo maxkamada lasoo saarayo waa dhiigga weyaan, waa dhiigga muslimka ah. marka sidaas oo kale waxaad garanaysaan jariimada ugu hore ama dembiga ugu horeeyey oo lagu caasiyey allah subxaanahu wa tacaala dhulka ka dhacday waxay dil ba ahayd. waa markuu dilay qaabiil, markuu dilay haawiil walaalkiisa. qaabiil markuu dilay haabiil walaalkiisa, markuu dilay jariimada ugu hore weyaan. walidaalika nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam maalintii haabiil la dilay oo qaabiil oo dilay ilaa yowmi alqiyaama, ilaa yowmina haada, qof kastoo la dilay oo xaqdare lagu dilay wuxuu qeyb ku leeyahay
qaabiil wuxuu ku leeyahay kiflun aw nasiibun, qeyb buu ku leeyahay weyaan. marka haddii maanta dagaal aad oogtid, maanta haddii maaragtay adiga aada u horkacdid, maanta haddii adiga aad ka dambeyso in dagaal la huriyo, in maaragtay dagaal maanta muslimiinta ay isdagaalaan, ama qof muslim ah mu'min ah sababtaada maaragtay lagu dilo, oo adig markaa sabab aad u ahayd, waxaad ogaataa inaad ku leedahay qeyb aad ku leedahay weyaan. walidaalika nabiga sal alla ly slm wuxuu leeyahy xadiiskiisa macruufka ah, man sanna sunnatan sayi'a falahu wisruhaa wisru man camila biha. qofkii maaragtay sunno sameeyo, sunno qofkii jideeyo, wadadaasoo xun, matala maanta qofku wuxuu jideeyey in la banaysto dhiigga muslimka ah, qofkaas wuxuu leeyahay dembi, wuxuu leeyahay qofkii sameeyey, iyo qof wax alla wixii la sameeyey wuxuu ku leeyahay dembi ku leeyahay weyaan. wa wisru man camila biha, qof alla qofkii dembigaas sameeyey wuxuu ku leeyahay nasiib, wuxuu ku leeyahay qeyb, wuxuu ku leeyahay maaragtay dembi ayuu ku leeyahay. sababtu maxay tahay? asigaa jideeyey wadada. sidaas qofkii maanta wanaag jideeyo iyo sulxi ka shaqeeyo iyo dadkii in maaragtay la walaaleeyo ka shaqeeyo, asigana wuxuu leeyahay ajarkaasuu leeyahay. man sanna sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila biha. qofkii wadada maaragtay wado fiican jideeyo oo wanaagsanna wuxuu leeyahay wadadaas wax alla wixii sameeyey, wax alla wixii ka dhashtay raad ah, wanaag oo khayr ah, oo sulxi ah, oo wanaag ah, wuxuu ku leeyahay qeyb, wuxuu ku leeyahay ajar ku leeyahay. walidaalika saa darteeda walaalayaal, axaadiista ku soo aroortay xurmatu damul muslim, qofka muslimka dhiiggiisa in la xurmeeyo, in la ilaaliyo, waa axaadiis aada u fara badan aan la soo koobi karin. waad garanaysaa xadiiska, hal xadiisa nagu filan uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli mu'min aw min qatli muslim. yacni adduunkao dhana zuulo waxaa ka daran qof muslim ah oo la dilo weyaan. sidaasoo kale kacbada waxaa ka sharaf badan qofka muslimka dhiiggiisa weyaan. sidaas oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiiskii macruufka la yaqaano usaama, aqataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah, ma qof waxaa dishay intuu ku dhawaaqay kelimadaas oo laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. nabiga calayhi salaatu wasalaam kelimadaas aada bu ugu celceliyey. marka qofka mu'minka ah dhiiggiisa waa xaaraam weyaan. waad garanaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankii ugu dambeeyey oo loo yaqaano xajatulwadaa, xajkii oo sagootiska ahaa, oo nabiga uu ku sagootiyey saxaabadiisa ridwaanullahi calayhim ajmaciin, waxaa ka mid ahaa khudbadiisa dheereed xadiiskii werinay jaabir oo weriyey, waxaa ka mid ah, ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbadaas dheer oo intaasoo kuna saxaabi maaragtay meesha joogtay oo goobjoog ahayd, nebiga sal ly slm wuxuu u sheegay, wuxuu yihi dhiiggiina, xoolihiina, sharaftiina, nasabkiina xaraam buu idinka yaha weyaan. sida maanta xurmada u tahay, oo maxay tahay maalintaas? waa maalintii carafada weyaan. waa maalin maaragtay oo carafo ah, waa bishii maaragtay oo dilxija ah, waa meeshii maaragtay barakaysaneed. intaasay xaaraam u tahay baa qofka mu'minka ah dhiiggiisa, xoolihiisa, maalkiisa, nasabkiisa, sharaftiisa. walidaalika biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaa la doonaya walaalaha meel kasta ay joogaanba waa in la ilaaliyo qofka muslimka ah dhiiggiisa. qofka muslimka ah dhiiggiisa waa macsuum, waa mid ilaalsan, waa mid dhowrsan, waa mid shareecada ilaalisay weyaan. waa midda shareecadan loo soo dejiyey in ilaaliso, waa maqaasidu shariica ayuu ka mid yahay weyaan. walidaalika waxaan aada iyo aada ugu baraarujinayaa culammada meel kasta ay joogaanba inay dowrkooda ay ka qaataan, kaalintooda ay ka qaataan, oo waktigooda ay ku bixiyaan sida walaalaha oo dhibaatada ka jirto in dhexdooda sulxi iyo khayr iyo wanaag laga shaqeeyo. qof alla qofkii dhibaato wadana la qabto, qofka daalimka ah gacantiisa la qabto, qofka madluumkan sidaas oo kale loo gargaaro. unsur akhaaka daaliman aw madluuma, qofka walaalkaada u gargaar hadduu yahay daalim oo asiga gardaran yahay, iyo madluum haddii laga gardaran labadood maarata in loo gargaaro. qofka daalimka ah waa gacantiisa in la qabto weyaan.
qofka wax fasahaadinayo oo mujrimka ah oo qof dadka isku diraayo oo ka shaqaysanayo dhiiga muslimiinta ah oo ku raadsanayo ama kuraas ku raadsanayo ama mansab ku raadsanayo ama wiji ku raadsanayo ama xoola ku raadsanayo qofkaas waa in la iska qabto weeyaan qofka waalimka waa in la qabto qof kasta ha ahaado qofka waalimka haddaan la qabanin wax hagaaga hab yaraata ma weeyaan sababtu waxay tahay waa in Allah subxaanahu wa tacaala in laga baqo weeyaan oo cidna maaragtay aan laga cabsanin ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis laga cabsado qof kasta maanta yani markuu dhinto qabriga keligiis ayaa gelaya weeyaan su-aalaha keligiisa la weydiinaya keligaada maaragtay qabriga gelaysa cid kula gelaysa malaa weeyaan laa qabiil walaa maaragtay hanti walaa maaragtay wajaah walaa kursi kale walaa mansib kale walaa jigo kale walaa ay shay kale kula gelaya qabrigaada ma jiro naftaada keligeeda iyo camalkaada ayaa isku soo haraa weeyaan walidaalika insha allahu tacaala waxaan rabnaa xalaqaadkaas oo buraarujinta ah walaalaha inaan buraarujino meel kasta ay joogaanba sidaas oo kale culimo badan ay ka qayb qaadato ayaan rajeynaynaa biidni illahi tabaaraka tacaala xalqadan insha allah xalqada ku xigto ayay noo ahaanaysa hada billahi tawfiiq sallallahu alaihi wa sallam nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in